أيها الأحبة، موضوع كوسابسن قلبيتك يا أرادو دي أفكارتو ده يرادك يكون ينبرشد المسلمين تاقارهان عالم كدمرك. waxaynu naqaanaa western society ama mujtamaca reer galbeed taariikh buu leeyahay isaga ku gaara. waa taariikh aan soo marin caalam alislaami. taariikhdooda ku gaarka ah waxaa ka dhashay dad halgamaya oo u halgamaya xuquuq. waa taariikh kiniisadu ay kalimatu samaa ku hadasho, afka ilaah iyadu wakiil ka tahay. boqortooyooyinka ka jira iyaguna divine rights leeyihiin oo ilaahay ku xidhan yihiin say sheeganayaan, bismi samaa ay wax ku xukumayaan. federal system ama nidaam iqtaaci uu maamulku ku salaysan yahay. dadka iyo bini aadamka iyo xoolaha iyo rag iyo dumarka iyo waxba la leeyahay. waxaa bilaabantay markaasi dhiidhi tiro badan oo ay falaasafo reer galbeed oo waaweyni ka dhiidhiyeen qaab nololeedkii bulshada ay u jirtay. waxay gaadhsiisnayd xuduud, haddaynu caalamka haweenka tilmaamnay iyo meesha joogtay, waxaan u malaynayaa inay qarnigii 19aad soo gaadhay maalan ingiriiska inuu ninku haweenaydiisa iibin karo. 1905 meelahaasaan rajeynaya inay maxkamada kiisas caynkaasi ku jireen. xad bay soo gaadhay doodba ay gaadhsiisnayd qofka dumar iyo bini aadam ma tahay mise maaha, ruux ma leedahay mise ma laha, ruux hadday leedahay ruux janno gelaysa miyay tahay mise ma aha. oo inan badan oo kamida negative ku jawaabta noqotay. mu'tamaraat marcon, mu'tamarkii la odhan jiro oo kale oo qabla albictha bisanawaat ayuu dhacay. reer galbeedku mufakiriin bay yeesheen iyo dad asxaabi alcuquula oo isku dayay inay bulshadooda xoreeyaan, siyaasa ahaan u xoreeyaan, afkaar ahaan u xoreeyaan, dhaqan ahaan u xoreeyaan. taas nataa'ij tiro badan baa ka dhalatay marka yurub la joogo. nataa'ij baa ka dhalatay sheegaysa inay caddaynayaan kitaabkoodu inuu muxaraf yahay, oo buxuus aqoon-yahanadooda ay soo saareen. nataa'ij baa ka dhalatay sheegaysa boqortooyadu nidaamka wax ku maamuleysaa ee yurub ka jira inuu baatil yahay. nataa'ij baa ka dhalatay sheegaysa xorriyaddii iyo xuquuqdii ummaddu inay soo noqoto, rag iyo dumar iyo caruurba. muddo markay taasi socotay, cuqusha bini aadamku hadday marjac weydo, meel reference ah hadday marjac weydo, tatarufkaa bilaabma. xagga kale ayay afkaartii markaa u socotay. maalan womanis liberal movementskii hore ama xuquuqda haweenka dadkii u dagaalamayay koowaad waxay ku bilaabmeen in gabadhu xaqeeda ay yeelato, mushahar in la siiyo, shaqo adag inaan loo dirin, xuquuqda caadiga qof kastoo insaani ka insaan uu u baahnaa inuu helo ayay kusoo bilaabantay. laakiin muddo markay socotay waxaa bilaabmay feminist groups waxa la yidhaahdo. feminist groupku iyagu waa ideology ama waa philosophy aan xuquuqu dirir ahayne namatul xayaa inay bedelaan bay iyagu rabaan. qab nololeedkaba in la bedelo. kuwaasi rabay qaab nololeedka in la bedelo way soo xoogeysteen. munadamaad tiro badan oo caalamiya yeesheen. reer galbeedna dunida maanta in badan oo ka mida isaga ka taliya biwasaa'ilin arbaca. hubka ugu tirada badan le dunida isagaa soo saara, isagaana gada. taasi waxay keensatay dagaalada dunida isagaa taxakuma.
yaa guuleysanaya yaan guuleysanayn in badan oo ka mid a, yaa hub la siinaya yaan la siinaynin. in dunidu nabad noqoto reer galbeed dan uguma jirto, waayo shirkaadkooda dhaqaale ugu waaweyn waa shirkaadka hubka iibiya. tijaarada dunida ugu weyn ee jirtaaba waa hub. lacagta ugu badan ee labaad ee dunida soo baxda waa mukhadaraad. may rabaan markaa marnaba tijaaratu silaax inay khasaaraan. se daraaddeed waa laabud in dunida dagaal jiro ama cabsiini jirto. silaaxaas bay gacanta ku hayaan oo iyaga ku taxakuma. shay labaad bay ku taxakumaan maanta dunida oo ah cunnada waxaan loo yaqaano iyo shidaalka, resourceska waxay yidhaahdaan, oo ugu weyn yahay qamaxu, sareenku iyo shidaalka la soo saaro. shidaalka wadanada soo saara waxoogaa faraguudkooda ay helaan, laakiin shirkadaha soo saara, kuwa iibiya, kuwa suuq geeya, kuwa rara, kuwa sicirka u geeya, kuwa by productska ka soo saara, waxoo dhan iyagaa leh. waxay kaloo ku taxakumeen dunida wax loo yaqaano asharciya duwaliya. munadamadan United Nationka la yidhaahdo ee ciday doontana irhaabiga qoraysa, ciday doontana khayrka u sheegaysa, waxay doontee axkaama sameynaysa. waxay kaloo dunida ku xukumaan waxaan loo yaqaano athaqaafa, jaamacaadka, miidiyaha, afkaarta, afartaa watiree xadhig oo ah suldaadka ugu badan ee maanta caalamka yaalla bini aadam gacantiisa ku jira, iyagay gacanta ugu jirta inta u badan. laba ka midaba markaa qadiyatulmar-a ka shaqeeya. laba ka mida powerkaasi ayaa qadaaya almar-a ka shaqeeya. qaybi waa ciddan thaqaafada faafinaysa ee t v leh, ee media leh, ee shaneemo leh, ee jaamacad leh, waxbarasho leh. qeybtaasi thaqaafay faafinaysaa ah aragtidii ay u arkayeen haweeneydu inay noqoto. qeyb labaadna thaqaafay faafinaysaa iyo qaab qaanuuniya ayay u faafinaysaa. waxa weeyaan munadamaadkan caalamiga waaweyn iyo munadamadan dunida ka dhaxaysa iyo waxa ka mid a. isticmaalkii koowaad ee caalamul islaami gumaystay hal shay wuu ka xishooday baan odhan karaa, inta kalena wuu farageliyey. qadaaya al-usra wuu ka xishooday, xataa axkaamta qaanuuniga ee qadaaya al-usra muu bedelin. caalam alislaami oo dhan waxaa loo yaqaana alaxwaal shaksiya. alaxwaal shaksiya waxaa lagu xukumaa maxay? shariica alislaamiya. soomaaliya matalan qudaad yaman uu keeno madhabka shaaficiga ah, dabeetana kuwaas baa xukumi jiray. markii dambena culamadii soomaaliyeed buu aqbalay, iyaga xukumi jiray. caalam alislaam oo dhan qaanuunka haddaad eegto qeybta alaxwaal shaksiya isbedel badani waaga hore kuma dhicin. xilligii isticmaalka oo dhan iyo dowladii cilmaaniga ee muslimiinta ka dambeeyey iyo waxaasi oo dhan, ama xukunka intiisa kale oo dhan wuu bedelay. axkaamtii ku saabsaneyd jinaayaadka, axkaamtii madaniga ahayd, axkaamta kale o dhan, qaanuunka kale o dhan wuu rafacay. labaatanayadii sane imika u dambeysay aragtida reer galbeedku waxay u badan tahay caalamulislaami in la gediyo intaa yare shareecada ka hadhay. shareecada intaa yar ee guurka iyo guriga iyo haweeneyda iyo caruurta iyo xaafadda, intaasaa sharci islaam ka soo hadhay. iminkana intaasaa loo xidhxidhan yahay sidii loo gadiyi lahaa. dabeetana intaasoo mu'tamar baa la qabtay, laga soo bilaabo toddobaatanaadka bilowgoodii yurubta baraa lagu qabtay, mexico baa lagu xigsiiyey, waa la soo waday, masar baa lagu xigsiiyey, bakiin baa lagu xigsiiyey. munadamada mu'tamaraadkaasi ama lilmar-a loo qabtay, ama lisukaan loo qabtay, ama magacyadaa leh, dhammaantood qaraaraad ka soo baxayay. matalan kii masar waxaan u malaynayaa 1200 oo munadamo oo aan dawli ahayn baa kasoo qeyb gashay, oo reer galbeed u badan, afkaarta reer galbeedna wada. tusaalayaal baan idin siinayaa si aynu si fudud ugu fahmi karno qadaayaadkaasi. bakiin markii la isugu tegay
waraaqdii la qoray tawsiyaadkii waxay dhahaan 230 goor buu ereyga gender kusoo noqnoqday gender 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 waa erey asalkiisu faransiis yahay luqa ingiliisiyana kuwaana ku jira marka dambe loo isticmaalo علوم اللغة هل كان إنه في عربي التأنيث والتذكير كاستعماله مذكر كي مؤنث كا لا استعماله أي علوم اللغة لا قصور رأي علوم الاجتماع ولا كيني تفاصيل عصبنا ولا سي دوني ده صدحات كي كيمي أما مسلم هذا أنا ما غير مسلم هذا أنا الدولة ده يري يري وحين هذا ورا أريا كان وثيقة ضد كبوحة definition هلا سي هلا شرحه ereygan waa maxay macnihiisu wasiiqadan muxuu ugu jiraa mustalaxa kan gender la yidhaahdaa waa lagu heshiin kari waayey guddaa loo saaray guddi la yidhi waxaa ka soo talisaan technical committee oo definitionka la siinayo reer galbeedku sibay rabeen in loo sharxo sidaa way diideen dunidii saddexaad waa mari kari weyday markay dunidii saddexaad mari weyday markii dambe waxaa lagu heshiiyey inuu noqdo erey aan definition lahayn erey aan definition wadanin the non-definition of the term gender bay yidhaahdeen ayuu heshiiska noqday the non-definition of the term gender cid walayba saa doonta u qaado laakiin meeshuu kusoo arooraya waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan war ereygani muxuu xambaarsanya maxaa ka dambeeya reer galbeedku waxay rabaan inay yidhaahdaan genderku waa state of being male or female bay yidhahdeen waa qofku inuu ahaado nin ama gabadh maaha ninka iyo gabadhaynu naqaano waxay leeyihin waa dowr ijtimaaciya ee dowr biologia maaha innagu ninka iyo gabadha waxaynuu naqaanaa qof qaab ilaahay u abuurayna gabadh baynu dhahnaa qof qaab kale ilaahay u abuurayna nin baynu dhahnaa kani ma aha waxay leeyihiin aladwaar alijtimaaciya o almas-uuliyaat alijtimaaciya ninkuna dowrku doonaa buu mathali karaa gabadhuna dowrkay doontaabay mathali kartaa gabadhu dowr nin bay qaadan kartaa dowr gabdheedna way qaadan kartaa ninkuna dowr ninnimuu qaadan karaa dowr gabdheedna wuu qaadan karaa idan waa state of being male or female ee ma aha biologically inaad tahay nin ama gabadh ma aha bay leeyihin waxa aad ka wacajabtale wuxuu yahay marka ilaa xad bay waxay isku dayeen masaladaasi in xataa maxkama aljinaa-iya lagu daro oo noqdo wax dadka lagu kala xukumi karo munadama sixa alcaalamiya waxay leedahay mustalaxa kani wuxuu faa'iideynaya ووصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية لا علاقة بها باختلاف العضوية بينهم باختلافات العضوية وحين إنماذا يقبل إنماذا ونقاني معها مثال كصك أيام تلمام مثلا الموسوعة البريطانية سيكولوبيديا إنجليزك وقرية وحلا يدهدو gender identity الهوية الجندرية gender identity محوي وحيلين وشعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى وفي العام الأغلب فإن الهوية الجندرية والخصائص العضوية تكون على اتفاق ولكن هناك حالات لا يرتبط فيها شعور الإنسان بخصائصه العضوية ولا يكون هناك توافق بين صفات العضوية وهوية الجندرية سكال هذا نوت الماء حويا قبل والله لنين كرا تعبيركم صفة ضدها قبل والله لنين كرا نين كنا والله قبلين كرا بلشدو مركا قف كان بلشدة كتر سنة إسقى الدوران أيه إنه بلشدة وقبته شقدر النمو iyo inuu bulshada u qabto shaqada gabadhnimo marka ninnimada iyo gabadhnimadu waa shaqo ninnimada iyo gabadhnimadu waa shaqo insaankuna isagaa dooranaya inuu shaqada ninnimo bulshada u qabto
iyo inuu shaqada dumarnimo u qabto xidhiidh iyo cilaaqana lama laha qofka bini aadamka ah iyo sidii ilaahay u abuuray. walidalik ayay waxay qabaan insaanka bulshada iyo qaabkay ula dhaqanto ayaa ama nin ka dhiga ama gabadh ka dhiga. waxaa laga yaabaa tacaabiirta tan inay qariib idinku noqotaan sheegaya wadaadku miyuu waashaye waxaanu ka hadlaya ma aha wax nin weyli sheegay bay idinla muuqato, laakiin waa afkaarta munadamaadka caalamiga ahi maanta ay rabaan inay qaanuuniyanna u dejiyaan, dadka muslimiintana dusha laga saaro. munadamaadkan aad arkaysa tirada badan lee capacity building baan wadnaa leh wax sharxaya waxa ay sidaan bihada tacbiir inaanay u sheegin baa laga yaabaa, laakiin tacaabiir kale iyadoo fudud oo dadku uu aqbali karo iyadoo sidata. su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan iyagu dhankay u socdaan maanta iyo cilmigu maanta dhanku u socda waa kala laba. iyaga munadamaadkani way xoogeysteen, xad bay gaadheen. galbeedka maanta maadaama dimuqrasi uu yahay codku fartaag lagu helo, munadamaadkan xoogga ah afkaartooda lagama hor iman karo, waayo cod xisbiga ka hor yimaada cod aada u tiro badan buu waayaya. saa daraaddeed baa la aqbalay in wax badan oo aaraadooda ka mid oo cilmiyan la naqdinayo in la qaanuuneeyo oo aan cidina ka hor imanin. su-aalaha isweydiinta le markaa waxaa jira laba dhakhtar oo muslimiina, doctor cumar shariif iyo doctor nabil kamil, bug bay qoreen la yidhaahdo almukh dakaruna untha. waxaana muqadamada buugga qoraya ashhar tabiib fi cilmi nafsi ee ah ururka culamaai nafsi alcaalami hogaamin jira oo ah asalkiisu yahay masri uu yahay. waxay isweydiinayaan ragga iyo dumarku ma isku mid ba, miyay isu egyihin mise waa laba shay oo kala gedisan oo is dhamaystiraya. kitaabkooda muqadamaadkay ku bilaabayaan baa waxaa ka mid ah inkastoo bini aadamku dhammaantii uu fahmi karo ragguna inuu rag iyo dumarkuna dumar yihiin ay kala gedisan yihin, laakiin mas'alada badihigaa bay leeyihin, xaqiiqada badihiga cid waliba fahmi karto maanta waxay noqotay bay leeyihin kaanahaa sirun min alasraar wayanbagii an tadila kadalik. sir weyn oo aan la fahmi karin ina gabadhuna gabartay ninkuna inuu nin yahay ayay noqotay bay tilmaamayaan. waxay soo gaadhsiiyeen maanta falaasafada ijtimaaciga reer galbeedku matanshi'ada barbaarinta ayaa gabadha gabadh ka dhigtay mise abuurkaa gabadh ka dhigay. waa dood cilmiga oo taagan dhexdooda. ma barbaarintaa gabadh ka dhigtay oo gabadha qaabkan loo barbaariyey, dharkan loo geliyey, bulshadu culturally waxaan ay u sheegtay, qaabkan ay ula dhaqantay, sidan ay ula hadashay ayaa gabadh ka dhigay, ee low la bedeli lahaa oo loola dhaqmi lahaa inantaya sida inanka loola dhaqmi lahaa, oo dharka inanka loo gelin lahaa, oo afkaarta inanka loo sheegi lahaa, miyaanay dowrka ninnimo qaban karteen bay isweydiinayaan. waxyaabaha aadka u cajabta le markaa waxa weeyaan ilaa xad maanta qaarkood ay bugaag qoran yidhaha born to be guy, waa wax loo dhasha bay leeyihin inu qofku shaad noqdaa. labadan itijaah ee itijaahan bini aadamku hore u rumaysnaa iyo itijaahan maanta la wado ee la rabo in la sameeyo waa itijaah xataa tajaarib cilmiya loo sameeyey. matalan
kabutzim yaa la yidhahdaa israel waxa lagu sameeyey meel dadkan muhaajiriinta ee dabadaa ka imanayay ayay qeyb alhandasa alijtimaaciya waxa la yidhahdaa lagu dabaqay waxaa la yidhi bal aan eegno inankiiyo inantu inay isku mid yihiin iyo inaanay isku mid ahayn si quraha loola wada dhaqmo wax quraha loo wada sheego marnaba yaan gabadha la xasuusinin gabadh baa tahay inankana marnaba yaan la xasuusinin inan baa tahay laakiin ha loola dhaqmo si isku mid a si uu usoo baxo jinsu thalith oo dhankii la doono loo gadiyi karo. tajaarib runtii aada u tiro badan baa maanta la sameeyey. aqoonta bini aadamkuna siba aqoonta acsaabta ku saabsan labaatanayadii sane u dambeeyey siba intii technology-gu horumaray siba intii matalan fMRI iyo BET positron emission tomography iyo functional magnetic resonance imaging qalabadaasi la soo saaray oo ah in la arki karo qofku saacadda uu fakerayo maskaxdiisa iyo wixiisu siday u shaqeynayaan. waxaa 20kan sane u dambeeyey aada u horumaray culumta acsaabta iyo maskaxda iyo afkaarteeda iyo waxeeda ku saabsiisan ilaa xad ay gaadhay markay afkaartay wadeen negative ku noqotay in maraakis cilmiya galbeedka ku yaala lacagta laga jaray waayo fikraddii la waday wax ka gadisan bay nataa'ijtoodu dhashay. waa markas cilmiya way gaadhay xad inuu fikraddii wax ka gadisan oo abuuri karo. maan rabo inaan qadiyad badan ama wax badan oo aan isku dayay inaan wax ka tilmaamo inaan soo bandhigo laakiin waan soo koobaya warkayga oo dhan. waxaan kusoo koobayaa maanta afkaartan aynu ka waramayno iyo tajaaribteeda la sameeyey nataa'ij bay soo saartay. reer galbeed afkaartan aan sheegayna waa la tajribeeyey markii la tajribeeyeyna way midho dhashay. waxaynu u baahanona inuu midhaha in yar eegno midhihii ka soo baxay. dhibaatada bini aadamka haysata waxaa ka mid ah waxa kale dawooyinka xayawaan bay kusoo tijaabiyaan waxan baa lagu soo tijaabiyaa laakiin mabaadi'da bashariga lama hayo wax kaloo lagu tijaabiya isagaa lagu tijaabiyaa. 70 sanadood baa shuuciyad lagu tijaabinayay natiijadii ka soo baxday hadday waadix noqoto. fakadalik ururadan feminist groupku way tijaabiyeen maxaa ka soo baxay. waxaa ka soo baxay kow waxaa la yidhi micyaarka bini aadamka horumarkiisa lagu qiimeynayo maxaynu ka dhiganaa miqyaas dhukuuriya baa la qaatay micyaar ninnimo oo ninku shaqadii uu qaban jiray hadday gabadhu qabatana way horumartay haddaanay qabaninna way dib martay weeyaan. waa miqyaas markaa waxa laga dhigay shaqada nineed baa miqyaasa laga dhigay. maxaa soo baxay waxaa soo baxay rag iyo dumarka waa la loolansiiyey loolanna way galeen reer galbeedka loolan maftuuxa oo fi kulli lmajaalaata bay galeen. natiijadii maxay noqotay bay leeyihin waxay leeyihin qarnigii koowaad dumarkii madaxda ahaa qarnigii 19aad yani markuu dhammaaday qarnigii 20aad bilowgiisii intii haween madax ahayd baa hadda waxay ka badan tahay qarniga 21aad inta haween madaxa. yani dagaalkay galeen bay leeyihin natiijadii ka dhalatay kow haween waxuma kordhin marka dhankaa laga eego. dhan kale marka la eego bay leeyihin dumarku galbeed jooga ee ay ka suurtagal noqotay inay guursato weli waxay qabtaan bay leeyihin labadii shaqo
dabadda iyada iyo ninku waa wada shaqo tagaan, waa la soo wada xoojiyaa, waa la soo noqdaa, gurigaa la yimaadaa, shaqadii gabadhnimo weli iyadaa gacanta ku haysa. hadday tahay caruurta iyo dhalistoodii, korintoodii, iskuulgeyntoodii, kasoo noqodkoodii, waxay leeyihin waxa loo kordhiyun gabadha 2 shaqo. awal hal shaqay haysay, waxaa loo ogolaa inay shaqadan caruurtan iyo waxa kan qabato, ay noqotona mid la biiliyo oo hantideed iyo waxay u baahantahay masruuf ay hesho. imika waxaa la yidhi hantidaada iyo masruufkaagana adigu soo shaqee, ninkuna ha soo shaqeeyo, laakiin haddii in shaqadii kalena aday ku sugaysaa. waxay leeyihin waxay kororsatay marka la sameeyo statisticska maanta Yurub ka jira, waa double arbeit bay leeyihin, waa double work, waa 2 shaqunbaa gabadha la siiyey. 2 gooroomi 8 saacadood ayna shaqayso, ninkuna 8 saacadood oo qura inuu shaqeeyo. waa qadiyadda saddexaad waxay leeyihin ka dhalatay shaqadii gabadha iyo ninkuba wada qabteen, natiijadeedii waxay noqotay bulsho ahaan in la dumo. oo xaggee laga dumo? tarantii reer galbeed maanta aqoon-yahankoodu wuxuu qorayaa inay maranayaan. alxayawaanaat almunqarida buu mid qoray, buugga uu qoray odaygan la yidhaahdo Patrick Buchanan. Patrick Buchanan waa nin asliyan Catholica Maraykana, 2 jeer isu soo taagay madaxnimada Maraykanka, candidate noqday, 3 jeer la taliya baan filaya madaxweyne ahaan jiray. wariyaasha ugu caansan CNN-ka markaan la sameeyey barnaamijka Crossfire-ka la odhan jiray waa ninkii sameeyey. waa nin muxtarama oo political decisionskooda dadkii sameynaya ka mida, siyaasiya, qoraaya. buug buu qoray la yidhahdo The Death of the West, The Death of the West, geerida reer galbeedka. geeridan uu ka warramaya waa maxay? geeridu ka warramayo o dhami waxa weeyaan buu leeyahay, waxaynu nahay buu leeyahay vanishing species. alxayawaanaat almunqarida baynu, ninka cadi buu leeyahay waa xayawaan sii dhammaanaya. waayo wuxuu tilmaamayaa dagaalkii 2aad ee dunida intii Yurub ay kaga baxday dagaalka, matalan dowladaheeda waaweyn, Francis, Germany, kuwa kale, iyo maanta tiradoodu maalintaasay badnaayeen, way sii yaraadaan. si kale haddaan u tilmaamo waxay leeyihin Yurub kafanta iyo xoolka waxaa yar xoolka, yacni dadka dhasha ayaa ka tira yar dadka dhintaa. si kale haddaan u tilmaamno waxay tilmaamayaan ummadii inay jirtaa, koritaanku waa inuu ahaadaa bay dhahaan minimum 2.1. yacni 100ka qoys 100 nin iyo 100 gabdhood ka koobani ugu yaraan 210 qof oo caruura waa inay koriyaan dhalaan. Yurub maanta intay dhashaa, kuwooda ugu sarreeyana waa 1.7 meelahaasi, kuwo kalena 1.2, 1.3, 1.25 meelahaasay marayaan. daraad markaan kasoo socday Dubai baan TV-ga arkayay program ka socda oo talyaanigu ka warramayo tuulo 500 oo qof degantay oo sanad bacdi wax ku dhalanin, caruuriba dhalan. markaasuu haddana wuxuu ka warramay Japan oo dhaqankaa qaadatay oo dhakhtarada ugu waaweyn ee jaamacaadka oo la weydiinayo tirada joogta 7 oo dhan 5 qof baa dhashay bay yidhaahdeen. waayo Japan waxay maraysaa 1.25. taa macnaheedu waa maxay? waxa weeyaan waxay leeyihiin wakti yar oo dhow dadka weyn. talyaaniga matalan waxay leeyihiin 30 sano kadib dadka waaweyn baa waxay ku labanlaabmayaan bay leeyihiin dadka yar. yacni 7% baa dadka 50 jir ka weynaanaya, waxa ka yarina waa 30% wax ku dhodhow. si kale haddaynu tilmaamno waxaa la leeyahay dadka pensioniska gaadha hadda dhowaan looma helayo cid shaqaysa oo siisa dee cashuurtii ay benshanka ku qaadan lahayn soo saare lama helayo. dabeetana axaduhum baa wuxuu qoro wuxuu yidhi Yurub waxay ku socotaa inay noqoto guryo gabgaboobay oo dad gabgaboobay ku jiraan oo caqli gaboobay wata buu yidhi.
si kale haddaan u tilmaamno waxay leeyihin Yurub hadda waa ninka cadba meel kastaba ha joogo waa 750 milyan buu marayaa bay tilmaamayaan Maraykankiisa Yurubtiisa Russia qaybo ka mid ah Australia waxa la isku daro waqti yar uu ka sii yaraanayaa tiradaas bay leeyihin hoos buu sii soconayaa marka basharka kale in every year waxay dhahdeen dunida waxaa ku soo kordha Mexico wadan u dhigma oo population baa dunida ku soo kordha xaggan kale markaad eegtana ninka caadi tiradiisi way sii yaraanaysaa waa maxay sababtani bay leeyihin sababtani wuxuu leeyahay waxaa diiday gabdhihii inay dhalaan oo maxay u diiday waxay rabtaa koow 30 sano ugu horeeya waxbay baranaysaa 10 sanadood oo ka xigana dee career-keeda ay dhisaysaa inay mansilo gaadho 40 markay soo dhaaftana waqti xilligii wax la dhali jiray bay ka soo talowday soo gaadhaysa waayo rag bay iska celinaysay waa laga yaabaa meelo badan inay rag iska celisay laakiin bulshadu maxay faa'iiday markaa iyana way dhimanaysaa kuwa kalena way dhimanayaan gender society maxaa laga faa'iiday waaxid minhum dood ay Canadian ku qabanayeen oo laga warramayay shawaada dadka jinsi thalith gabadha guursanaysa ninka guursanaya ayaa wuxuu leeyahay kii doodaya waa nin gaaleed wuxuu leeyahay fikradan haddaa aqbashaan waxaa ii sheegtaan 60 sano kadib cidda Canada degaysa way gabadhuna hadday gabadh guursato ninkuna nin guursado dee wax la dhali maayo dadka maanta joogaana buu leeyahay 60 sanadood kadib waa maranayaan 60 sano kadib wadankan yaa degaya buu leeyahay yay dawladdu u qorshaysay 60 sano kadib inuu yeesho wadanka Canada si kale markaan u tilmaamo waxay leeyihiin loolankii rag iyo dumarku wuxuu keenay isku dhex darankii rag iyo dumarka wuxuu keensaday bay leeyihiin xataa ضعف الجنس البشري buu dhalay bay leeyihiin ninnimadu inay hoos u dhacdo gabadhnimadu hoos u dhacdo biologically inay isbedesho ninnimadii iyo gabadhnimadii iyo wixii la midka ahaa oo dhan xalena waxa la inoogu yeedhayaa ama afkaarta la wado dhan waa ka natiijaday dhashay cidii tajribadan qaadatay ee isticmaashay natiijada dhashay waa ka hadaba su'aasha isweydiinta leh waxa weeyaan horumarka maqaayista lagu qiyaasaa muxuu yahay tusaale ahaan shaqada qof bini aadama in la dhalo oo la koriyo iyo in engineer la noqdo computer sameeya ama gaari sameeya ama gantaal sameeya ama dayuurad sameeya ka qiimo badan bulshada dhexdeeda yani waxa la rabaa umadi waxay haysato waxa ugu qiimaha badan leh waa qofka bini aadamka xadaarada la sheegaya waa 3 shay oo la isku daray waa bini aadam dhul iyo waqti saddexda sida la isula falgaliyo civilization ku ka dhashaa saddexda waxa ugu muhiimsan bini aadamka xataa umada haddaanay resource haysanin laakiin bini aadam oo xaqoon ay haysato wax way samayn kartaa Japan maanta there's no resource maaha umad wadankeedu resource leeyahay laakiin waa umad wadankeedu cilmi leeyahay waxay dunida ku hogaaminaysaa waa cilmiga wuxuu gaarsiisay xad uu noqdo markabku birtu ka soo qaadaa maxaa la yiraahdaa Australia ay tagaan bir bay soo iibsadaan dhowrka bilood oo markabku soo socda baa la rabaa sinaacadu inay isbedesho markabku hadhow xumuulada uu rogaya maaha bir waa qalab la sameeyo xumuulada xagga kale ka rogaya waa bini aadam waxa ay isku dayaan inay resource ka siiyaan bulshadu hadday bini aadamka weydo say u horumaraysaa waxa qaldan in la yiraahdo shaqada dumarku masariirta iyo kijada dhexdeeda oo hadda maxamaalka iyo darawalnimada dhexdeeda iyo ma qiimo badan haweenaydu inay qof bini aadam dhasho oo koriso oo bulshada ku soo darto mujtamacan dhan haween baa dhalay oo koriyo dad ka dhigay
filosofkiisa iyo dhakhtarkiisa iyo aqoonyahankiisa rag iyo dumar midbuu doona ha ahaado. haddaynu nidhaahna hal la xidho warshada bini aadamka soo saarta oo hal la qabto, maxaa gabadha loogu bedelaya? shaqo awalba la qaban jiray, maxaa kusoo kordhaya? haddaadna duuliyo noqoto ninkuna duuliyo noqdo, laba duuliyo waddanka maxay ku kordhinayaan? ma jirayaa nin bedeli kara oo qaban kara shaqadii haweenku qabanayay? waa waxaan jirin. idan in la yidhaahdo bulshada roolka ay gabadhu ku leedahay qiimo ma lehe, taasaa ah caqliyada ugu weyne qaldan. caqliyada ugu weyne qaldani waxa weeyaan, matalan ninkaan tilmaamayo Patrick Buchanan wuxuu leeyahay haddaynu rabna buu leeyahay bulshadu inay horumarto iyo reer galbeed inuu sii jiro, haddaynu rabno laba hal haddaad samaysaan oo qura ayay suurtagal idinka tahay buu leeyahay. in inanta reer galbeed lagu qanciyo buu yidhi ayaydeed intay dhali jirto qura inay dhasho waa adagtay buu yidhi se maanta inaad ku qancisaan. inanta westranka joogta in loo sheego na ayaydaa intii ay dhali jirtay dhal waa adag tahay buu leeyahay. si ay taasi u dhacdana buu yidhi suuqa dhaqaalaha cidhiidhideen ninka in la siiyo family wage buu leeyahay, mushahar ku filaan kara gabadha tan iyo caruurtan iyo waxaan oo dhan. gabadha galbeed joogtaa shaqada umay soo doonan in faakahaysi daraaddeed, nolosha kaga xidhan. maanta namat alxayaa fi lgarb way adagtay, nin quroo shaqeeya inuu reer maamulo waa adagtay. hadduu maamulana midh ka badan ma maamuli karayo, hal ilmo inuu dhalo. nolosha qaabkay u dhigan baa waxay qasbaysaa ninka iyo gabadhuba inay shaqo tagaan. maaha jacayl ay gabadhu hayso inay shaqo tagto, laakiin reer kuma jirayo. laba caruura hadday leeyihiin macnaheedu waxa weeyaan ninka iyo gabadhuba waa inay shaqeeyaan, waa ilaa laba caruura intay dhalaan ma korin karaan. hal qof intuu shaqeeyo oo laba caruura la dhalo, innaga wadanada caalamulislaam iska caadi 6 iyo 7 ba intaad dhasho waxoogaagaad soo shaqaysa adiga iyo islaanta iyo caruurta iyo wixii nabadna ku filaada baa laga. laakiin Yurub maaha, North Americana maaha. taa macnaheedu waxa weeyaan waa compel inay gabadhani baxdo systemka sidii loo dejiya caynkaasiya. ayuha alxiba, markaa waxaynu isweydiinaynaa, waxaa layna leeyahay gabadhaa la rabaa in la horumariyo, haweeneydaa la rabaa in la horumariyo. haweeneydu hadday biolot laga dhigo ama engineer laga dhigo miyay horumarta? saas waa taa. oo ay gafto ama samayn kari weydo dowrkay bulshada ku lahay. marna uma jeedo gabadhu ma shaqayn karta ama wax ma baran karta, kama hadlayno. taasi duruufta mujtamacay ku xidhanta. jaamacaadka la sheegaya waxay ku xidhan yihiin imise engineer buu waddanku u baahan yahay bay ku xidhantahay engineerinka collegekaynu samaysayna. engineerku maaha wax laga barakaysto oo ilaahay lagu baryo, jannana laguma galo. waxaa loo bartaa bulshada in lagu horumariyo. marka waxbarashadu waxay ku xidhan tahay higher degree-ga ahi bulshadu maxay u baahan tahay? intee dhakhtar bay u baahan tahay, intee engineer bay u baahan tahay, intaa waa inu bulshadani soo saari karta, rag iyo dumar wuxuu doonaa noqdee. laakiin in laga dhigo shaqada guriga dabadiisa ah inay ka qurux badan tahay shaqada guriga gudihiisa ah, taasaan wax saxa marnaba ahayn. marnaba kama qurux badna in ilma la dhalo oo la koriyo, marnaba kama qurux badna in pilot la noqdo ama computer la sameeyo. computer iyo bini aadam baa qaalisan. qof bini aadama ayaa mar kastaba ka qaalisan computer iyo wax lamid iyo samayntiisii. walidalik insaanku wuu tajribeeyo wax badan buu tajribeeyey, laakiin mararka qaarkood bay tajribadu waxay gaadhaa point of no return, meelaan dib loo noqon karin. maanta galbeedka aqoon-yahan badan oo ay leeyihiin ama siyaasiyiin badan oo ay leeyihiin baa arkaya inay mahlaka ku socdaan. ayay u muuqataa systemkana inaanu sax ahayn, laakiin waxay joogaan point of no return, dib u noqon kari mayno. waayo cod heli maayo. bulshadan waa la bisleeyey markay bislaatay ee noocan u bislaatay qeydhin dib u noqon cidi odhan kari mayso, way adagtay. haddaba waxa mashkiladda ah, reer galbeed waxay rabaan intay ku jabeen na inay inoo soo waaridaan, intay ku guulaysteenna inay inaga qarsadaan. miyaa aragteen alculuum daqiiqa munadamo wadoole dadkaa la horumarinaya waa la baraya. munadamo ma jirto dunida leh technology-ga, dunidan aan waxba garanayn technology-ga lasoo baro.
cilmiga hala soo baro ma jirto. laakiin waxaa jira munadamo leh dumarka la furay ha la horumariyo, munadamo leh dumarka yaryar ha la horumariyo, munadamo leh dumarka aan guursanin waxa loo sameeyo, munadamo leh dumarka guriga ha laga soo saaro. 2,000 oo munadamo haween ku saabsan baa jira oo dhammaantood u fakeraya si dibad loo keeni lahaa. That's all. munadamo quro galbeed ka imanaysaa ma jirto oo inoo sheegaysa rag iyo dumarba waxa dan inoogu jirto cidina bartaa ma jirto. reer galbeed markaa khubudkiisu waaridaa, xumihiisu waaridaa, wanaagiisa ma waarido. dhibta ummadda caalamul islaami taagana waxa weeyaan wanaagga inaad heshaa dhidid bay u baahan tahay iyo inaynu cilmi barannaa oo technology barannaa oo aqoon keenna oo dhakhaatiir noqono ka noqonnaa dhidid iyo cilmi ay u baahan tahay. inaynu soo isqaawinaa oo dabada muujina oo dhafarada xiranaa oo maryaha ilhaylan qaadanaa waxay u baahan tahay inaynu tagno suuq wax laga iibsado. suuq wax laga iibsado inaynu tagnaa way u baahan. idan wixii xumaa waxay noqdeen wax fudud oo markiiba la qaadan karaya. wixii wanaagsanaana waxaan jirin bay soo baxeen. waxaan rabaa inaan hal erey markaa idiin sheego. ereygagu wuxuu yahay war nolosha xaggee marjac u ah. insaanku waa inuu ka qaaleysaraadaa wax lagu tijaabiyo sida jiirka iyo xayawaanka. jiirkan ay dhakhaatiirtu dawooyinka ku eegeegaan ama modaliskan ay injineeradu wax ku tijaabiyaan. bini aadamku ma aha. bini aadamku ma noqon karayo jiir kolba mabda lagu eegayo kolba fikrad filosof lagu eego. bini aadamku ma noqon karayo model la yidhahdo waa handasa ijtimaaci iyo social engineering. bal waxay soo baxdaa baa la eegayaa gabadha iyo inanka haddii la isku daro waan midna wax loo sheegin waxay soo bax ma aha. bini aadamku nooca bini aadamku ka qaalisay walaqad karramnaa bani aadama baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. bini aadamku waa shay la karaameeyo rabbigii karaameeyey. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sharciga ugu soo dejiyey markaa waxa weeyaan inaanu bini aadamku ka mid noqonin waxa tijaabada la geliyo ee inuu jiro point of reference uu qofka bini aadamkii wax kasta ugu noqdo xaq iyo baatil. maxaa qadiyadu markay insaanka joogto ilaahay wuxuu ina leeyahay alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu lkhabiir. cid kasta yaa u aqoon badan bahalkani hor yaalla wuxuunbaa u aqoon badan kuwii sameeyey kuwa sirtiisa garanaya. gaariga mercedes wuxuu mercedes u noqday maxaa toyota mercedes u samayn kari waayo cid kale sirtiisay qarsadeen. injineerkii sameeyey mercedes waa inantiisi ugu magac daray injineerkii baa ka bilaabay. inantiisa ninka bahalkan ugu magac daray sir yar buu qarsado shirkadan haysato waan caalamka kale oolin. taasaa ka dhigtay mercedes cid walba manufacturekiisa ugu aqoon badan. adiga yaa ku abuuray? insaanka yaa sameeyey? yaa u aqoon badan? ma falaasafada mise rabbigii abuurtay? ilaahay baa wuxuu yihi alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu lkhabiir. ilaahay baa wuxuu ina leeyahay a antum aclamu am illaah. warta dadow ma idinkaa wax og mise ilaahay baa wax og baa ilaahay leeyahy. ilaahay baa ka jawaabo wuxuu leeyahy wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila. war aqoon ba in yar baan idin siiyey baa ilaahay leeyahy anaa rasmiga og. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamaya inuu yahay axkamu alxaakimiin. cid wax xukunto ka u xukun fiican. rabbi wuxuu inoo sheegay waxaynu dhahnaa shayga kan hala weydiiyo khabiir soo maaha. haddii aad iminka xanuunsato wadno ku xanuuno oo lagu yidhaahdo dhakhtar baa lagu geynaya oo dhakhtarka markaad usii galayso lagu sheegay inuu yahay waa the number 1 in this world lagu yidhaahdo waa ninka koowaad ee caafimaadka wadnaha looga dambeeyo. adigoo yaro farfaraxsan baad u galaysaa soomaha isla de waxaad joogtaa last pointkii ninkii dunida ugu khabirsanaayo wadna ah. hadduu ku yidhaahdo markaad soo gasho mashiin yar ku saaro ku yidhaha khatar ba cagaa kuma socon kartid hala saaro bahalka markaasaad shiifinaysaa nafta iska qabanaysaa. waayo waxa lagaa dhaadhiciyey ninkan inuu yahay maxay ninka ugu dambeeya ee masalada tan la weydiiyaa lagu sheegay inuu yahay. ilahay wuxuu ina leeyahy subxaanahu wa tacaala walaa yunabi'uka mithlu khabiirin. allaha khabiirka ah siduu kuugu waramayo cid kuugu waramaysaa ma jirta baa ilaahay leeyahy. haddaad khibrad rabto khibrat raxmaan baa un ah ta la ictimaadi karo. ilaaha dunidan abuuray ee dhisay ee adiga ku keenay ee basharka keenay
ayaa huwa alkhabiira. waxaa laga yaabaa inay ku yidhaahdaan xuquuqdaadii baa la raadinaya, kan baa la raadinaya, waxaa la rabaa in lagu naxariisto, uma ilaahay cid kaaga naxariis mudan baa jirta. arxamu raaximiin buu ilaahay isku sheegay, cidda wax naxariisata cidda ugu naxariis badan. waxaa leedahay marka qofka muslimka ah, muslimiintii hore dunidan marbay saytareeyano ka talinayeen. maxay kaga taliyeen? maka saynis ka badan sayniskii yaalay persia iyo romanska ma olin. saxaara cidlaa bay ahayd, dadka deganinta ugu badani waxna qorin waxna akrinin. laakiin waxay heleen marjicii caqliga bini aadamku ugu noqon lahaa. waxay heleen manhajiyadii saxa ahayd ee lagu horumari kari lahaa. saasi daraaddeed bay si fudud u horumareen. waxay rumaysteen inay iyagu yihiin asaatidat alcaalam fi hada albaab. maaha baab technology dunida kumay hogaaminayn. imaam tabari ayuu kasoo guurinayaa, imaam abilxasan annadawi raxmat ullahi calayhim ajmaciin, wuxuu kasoo guurinayaa markii persia madaa-in markii la qabsaday, muslimiintu wixii qasrigii madaxtooyada markay soo galeen khumus bay ugu yimaadeen iyaroo aada u khafiifa. raggii meesha marayay bar ka midi mindiilo faraha lagu tirtirtaabay moodayaan buu leeyay. yani kimisaan loo sameeyey ba abidba may arag. saxaabigii la yihi wuxuu yihi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu kamay dhargin buu yihi weligood khubus shaciirka sabanka. markaasuu su-aal la weydiiyey, war oo miyaanay ka daqiiqdan khafiifka arag baa la yihi. manaakhishaba may aqoon buu yihi. wax lagu shaandheeyaaba agtooda ma olin. raggii aan wax lagu daqiiq lagu shaandheeyo haysanini caalamkay ka taliyeen, cilmay kaga taliyeen markii dambe. laakiin waxay rumaysnaayeen marjac inay haystaan ay bini aadamka kala dheeriyiin oo ay dunida ku hogaaminayaan. waxaa markaa rabaa war badan oo reer galbeed aan runtii soo qoray, laakiin haddana waa ka xishooday inaan sheego, waayo wax badan oo la sheegi kara maaha, qurux badanna ma leh. laakiin wuxuu warku ku kooban yahay, warkaygu wuxuu ku kooban yahay shareecada islaamiga intaa ka hadhay ee yar ee axwaalu shaksiya iyo mar-aya intaa ku saabsan ayaa caalamka o dham iminka duulimaad ku yihi. munadamaadkiisa iyo hay-aadkiisa iyo warkiisa oo dhame intaas sidii looga takhalusi lahaa bay wadaan. ummaddii haweenka laga soo galana horay u duntaa. reer galbeed iyagaa haweenka iska soo galay, iyagaana maanta qaylinaya. waayo yurub inay sii jirto maanta ama north america, siyaasiyiintoodu waxay leeyihin 3 shay umaanu kala dooranayna. 3 shay ee la kala dooranaya waxa weeyaan bini aadam la-aan dowladdani ma jiri karto. see bini aadam loo helayaa? waa 3 option un bay yidhaahdeen. option ah in laga dhaadhiciyo haweenka reer yurubka inay caruur dhalaan oo sidii u dhalaan oo dadku u tarmo. lama hayo, waa la waayo. optionka labaad waxa weeyaan in la qaato bini aadam haddaba tajniis. qaxoontiyadan iyo waxaan maxaa loo aqbalayaa? dad baa la rabaa in la beero, maaha siyaasad dhow. maan baawar baa loo baahanya, mudan isay u jiri lahaayeen bay la-yihiin. wuxuu tilmaamaya patrick buchanan, waxaynu ku qasbanay buu leeyahy haddaynu maraykan nahay 1 milyan oo qof sanad kasta inaynu qaadano. haddii la rabo maraykan inuu jiro 1 milyan qaxoontiyo cusub every year waa in la qaataa. haddii kale dhasha maanta la dhalo buu leeyahy 1 milyan oo ziyaadiya wayna soo koronaa. lama hayo. marka 1 milyan oo bini aadam oo cagiisa ku soconayo oo cid kale dhashay oo korsatay oo ku tabacday oo rooraya soo gelaya ka aan la aqbala buu leeyahy. optionka saddexaad bay idhahdeen waa inaynu aqbalno inaynu duul gaboobay oo cashuurta kor u qaada oo horumarkoodu dib u noqdo oo dowladaha saddexaad dowlad yaroo ka mid oo sii dhimanaysa inaynu noqono. 3daa option umaynu kala dooranayna bay leeyihin. optionka iyaga maanta agtooda suurtagalka ka noqday waa ka dhexe. markaa kan ah aan dunna way diideen, kan ah aan wax dhalana dumarkii lagu qancin kari waayo. waxa soo hadhay markaa waxa weeyaan aan qaadano
bashar cid kala dhashay oo korsatay oo ku tabacday oo ordayaynu helaynaaye aan qaadano. waa iska sheeke bereley waxaana maqashaan xuquuqul bini aadam daraaddeed baa loo qaatay. xuquuqul bini aadam cidina isma qaata, berisna cid iskuma siiso. waliya fiiha maaribun ukhra weeyaan, dana kale ay u baahan yihin bay yeesheen. haddaba innaga waxaan idin leeyahy waxa weeyaan, laga yaaba dadka waqtayda fadhiya tabaqa almuthaqafa ay leeyihin, almuthaqafa dabaqadii aqoon-yahanka ahayd, wax baratay, jaamacad ka baxday. waa dabaqada aan rabo inay mabaadi'dan ilaaliso islaamiga ah, inay ilaaliso ummaddan iyo jiritaankeeda. waa dabaqada aan rabo inay wax dhasho oo waxbarashadaasi u gudbiso kay dhashay, soo saarto ilmahaan u baahna. ilmo umiyi wax badan dadka ku tari mayaan colays ahayn. ilmo umiyi hooyadu inay waxbarataa baan qabaa, oo waxbarashadeedu waxay midho dhal ku sameynaysaa guriga laftiisa. laakiin ma qabo inay isreer galbeediso ama afkaarta reer galbeed soo waarido ama loolana aan jirin la raadiyo. masaladu markay xuquuq timaadana waxaan leenahay xuquuqda bini aadamka ilaahay abuurtaa dejiyey. inagu qawaaniin uma baahnina, waxaynu u baahannahay tatbiiqun wixii aan la soo dejiyay inaynu tabaqno. waxaynu u baahanay inaynu dib ugu noqono. dulmi waa jiraa, caruur la dulmiyo, dumar la dulmiyo, ka la dulmiyo, laakiin sababtu waa maxay? waa cadamu tatbiiqi kitaab illahi wa sunnati rasuuli. sababtu maaha inaan filosofiya u baahanay, inaan afkaar u baahanay, inaan aaraab cusub u baahanay, inaan western ideology u baahanay maaha. sababtu waxa weeyaan inaan ka tagnay kii xuquuqda kala sheegayaan cidna weexanaynin. ilaahayna abuurtay xuquuqda kala sheegayay aan cidna weexanaynin. marka ayuha alaxiba, weedhaydu waa weedhaasi qof digaya weedhi. weliba aan isku wado inaan soo arkay tajaaribta caalamka saddexaad taalla iyo ta galbeedka taallada. in badanna labadaba la soo dhaqmay, labadaba mashaakilkooda dareemi karo, labadaba aragnay waxay qoreen ama waxay ka fekereen ama waxay soo horumariyeen. ma odhanayno afkaarta galbeed taalla dhammaanteed waa wada baatil iyo wax dumaya iyo waxaan bini aadamka khayr ugu jirin. wax khayr ku jiro tiro badan baa jira, laakiin inta xagga sare la soo mariyay xaggeena loo soo riixaye tirada badan leh ayaa intii qashinka ahayd, intii nafta lahaydna raggii lahaa uu la hadha, intii meesha nafta ka lahaydna dib baa loo reebo, intii aan waxtarka ahayna xaggeenay usoo socotaa. dhalinteeniina waxa laga dhaadhiciyay ma rabtaan inaad horu martaan oo galbeedku halkuu gaadho ay gaadhaan. waxa ay sameeyeen sameeya. inantu jinis xidhato, inantu hadday jinis xidhatana horu mari mayso, hadday jilbaab xidhatana dib u mari mayso. labaduba waa maro. haddaad jiniska xidhato iyo haddaad jilbaabka xidhato waa laba maro un. waa laba maro, midna ilaahay raalli ka iyo mid aanu raalli ka ahayn, waxa udhexeeya. amaa horumarka shaqo kuma laha, waa laba un qaaboo jir loo asturo. afkaarta a u baahantihiin markaa waa inaad kitaabkiinii iyo sunnadiinii iyo dhaqankiinii iyo dadnimadiinii iyo iimaankiinii iyo islaamnimadiina dib ugu noqotaan oo xoojisaan oo ku faantaan. oo runtii gabadha soomaaliyeed ee xijaabani maanta yurub oo qof lagu faano, waana dadka ugu horeeye wax ka bedelay aragtida iyo nolosha yurub. ilaa xad dowladaha qaarkood ay ka cabsadeen oo xijaabkaba mamnuuceen ama niqaab mamnuuceen, waa cabsi daraaddeed. haddii kale dee caqligu wuxuu sheegayay xorriyadda isqaawiskaba waa la ogolaayo, maxaa xorriyadda niqaabka loo diidayo? gabadhu inay meel kasta qaawisaana waa la ogoliyay, se meel kasta inaad qarisaa waa dembi. waa caqli aada u fog inaad tidhaha meel kasta oo la qariyaa waa banaanta, meel kasta oo la qariyaase waa dembi. waa wax ma yaana iyagu caqli lahayn oo fahmaynin, may way fahmayaan, laakiin waxay u arkaan waxa kale inuu ideology faafaya yahay. niqaabkan yar iyo xijaabkan yar gabadhan muslimada yari sidataan waxay u arkaan ideology faafaya. inanka soomaaliyeed ee shari sugaal iska sitaan inuu muslim iyo inuu gaal yahay cida garan mayso, laakiin inanta soomaaliyeed ee maryaha yare asturkaa sidataan markay meesha soo martaba
su-aashaa bilaabmaysa qofkani muxuu ahaa muxuu rumaysay maradani maxay tahay ma war risaala sideed iyadoo aamusan bay risaalo gudatay iyadoo aan afka qofnaba juuq uga oranin ayay diin iyo mabda iyo risaalo ku baaqaysaa marada ayaray xidhan tahay iyana waa taatay ka xanaaqsan yihiin maro jidh la saaray dankama ay yeesheen maro qofuu isku daday qiimo badan umay samayseen laakiin waxaa la diidan yahay maro mabda ka dambeeyo weliba mabda uu ka dambeeyo mabaadi'da aan dunida laga jeclay marka waxaan kusoo koobaya islaamnimadiina iyo dadnimadiina ku faana wixii ilaahay idiin soo dejiyay rumeeya caqliga toosanina taas buu sheegayaa haddaa haddaa faahfaahin intaa ka badanna maraajic badan oo islaamiya waxa kale laga qoray baa jira iyo kuwa xataa maanta gaalo qortay oo baabka ku saabsan ninka iyo gabadha iyo differenceka u dhexeeya iyo maanta biological ilaa xad la leeyahay cuquushu usbuuca toddobaad bay bilaabantaa inay dhadig noqoto iyo inay lab noqoto caqliga bini aadam mukha linsaan fi lusbuuci saabic jonatsku markay samaysmaan buu bilaabmaa inuu nin noqdo iyo inuu gabadh noqdo caqli gabadheed iyo caqli nineed oo kale noocaa jira oo maanta biological la rumaysan yahay wax badan oo la sheegi karaa jira laakiin waxaaba agtayda fadhiya wadaadkan idinla hadlaya nin sheekh u ahaan jiray 39 sano ka hor mana da-danayga ma weyn u aragtaan waa iga yadi moodina nin weyn ustaad xasan kaafi oo takhasuskiisuna yahay cilmigaasi tibiga ah insha allahu tacaala kolleyba isaga kelmad le laga yaaba inay baabkaa ku saabsanaato anuu intaa kusoo koobaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu